الله وبركاته سوري وهذا خيارات قيمها قايها وعن مركز تاء ملك استوى جوبتان ولكن عقدها ودب إذا كوسا نقول سواء عافمات قبل إذا كنا عافمات قبتنا في اللي أكون متقرب بنا هذه الشغل دتان أصحاب طمان توحن سوا بقضي أسبيتال كوين الصومال السودانيس وهالكاس برنامج قلنا اللي اسمه ويل عن صاحبنا هاي مرنا ولا لنا هاي نوضو ذكرنا يسين وأحمد دق سلانتس إسبيتالك جيفتا أوبريشنال وسميناي مركا إن شاء الله تعالى أن أسود عينا ولا لها إن متقنا ولكن أحمد دق أحمد علي حسين إن متقنا سلانت إلهي سبحانه وتعالى وعافيه رن أهانتي قبضة منك اللي جبهي أصحابته قبضة أورا لهاد waxay ku umushay isbitaalka weyn ee Soomaali Suudaanis ayay ku umushay marka gabadha minka ayaa dhaawac ka gaaray marka run ahaantii hadda waxa loo fadhiyaa garti iyada ahayd gabadha waalidiinteeda iyo mataqaanaa dhanka kale wiilka Abiis Ahmed Ali Hussein Ali Bishaar iyo Ahmed Deeq iyo adeeradiisa qolka ku wada jiraan waxa ka wada hadlayaan barnaamijkii operationka dhibaatadiisa u dhacday sidoo kale waxaan dareemaynaa asxaabta in xogaa afduub inuu jiro aad maleynayso sababtoo ah wiilkan gabadha isaga qaba dhaqankeedu leeyahay gabadha hadii minka laga dhibaatay ama laga qalin lagu sameeyo isagoon raali ka ahayn run ahaantii dhaqmadeedii iyo halkaas ku baaba'aysa run ahaantii meesha waxa jooga mid kamid ah gabadha adeeradeeda oo barnaamijka ku guda jiro oo loo maleynayo in mataqaanaa si hoose dhaqaatiirta operationka fulinaysay in ay ugu wada hadleen ma aqaan isfaham hoose isaga iyo dhaqaatiirta isfaham inuu ka dhaxeeyo in kala ma aqaano laakiin wiilka Soomaaliyeed marna walaalkeen ah marna saaxiibkeen ah gabadhiisii halkaas minka looga dhibaateeyay waana la daboolayaa wixii inaan soo bandhigno ummadda bulshada caalamka aan u bandhigno waa la daboolayaa lacag 5 milyan oo Soomaali Soomaha lacag 5 milyan oo Soomaali ay dhiibeen run ahaantii waxaan dhihi karaa qof dhan cadeen u tahay inay dhibto waka marka asxaabta barnaamijkan oo dhameystiran dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa run ahaantii gabadha Soomaaliyeed oo walaasheen ah iyo wiilkaas walaalkeen ah oo islaantiisa minka laga bixiyay way dhibaataysan run ahaantii waxaan ka rabaa walaal Soomaaliyeed haddii aad aqli ku caawin karto iyo haddii aad garaad ku caawin karto iyo haddii aad dhaqaale ku caawin karto in aad soo garab istaagto gabadha Soomaaliyeed iyo wiilkaas saaxiibkeen oo isagana video xiga aan qadka soo galin doono isagoo ka hadli doona sababihii wax qaabka ay wax u dhaceen iyo waxyaabihii keenay in mataqaanaa gabadha operation lagu sameeyo oo minkeeda in ulajeed dhibaato loo gaarsiiyay iyo in mataqaanaa si macnaha oo la kacaan ahayn oo minka dhibaato u gaaray in kale isagaan qadka soo galin doona live to live aan wareysan doona wixii meesha ka dhacay isagaan noo sheegi doona la socod wanaagsan waad mahadsantiin videogan haddii aad ku cusub tahay subscribe like share garee oo la wadaag saaxiibadaada wixii commentiga ahna wixii war oo aad ka qabto ama fikrad aad ka kala macnaha aad ka bixi karto barnaamijkan commentiga nagu soo wadaagaysaa video xigana Axmed qadkan soo galin doona toos ayuu u hadli doonaa waxyaabihii meesha ka dhacay oo dhan isaga noo soo bandhigi doona waad mahadsantiin walaalkiin cagadaha oo idin leh tan kulanti damba sida iyo nabadgelyo amaana Allah